runtii arrin guud iyo mid gaar ah labadaba aan ugu maqnaa waxaan soo maray runtii dhowr wadan oo kamid yahay Imaaraadka iyo Ethiopia labadaba wadamada aynu saaxiibka nahay iyo dawladda Ingiriiska oo aan habeen hore casho ku lahayn safaaradii dawladda Ingiriiska runtii wadamada aanu madaxdooda saragnay waxaan kala hadalnay arrin runtii khatar ku ah geeska Afrika oo ay dabada ka riixayaan maamulka Soomaaliya ka dhisan ee Muqdisho oo runtii ah in ciidamo ururisa oo ay doonayaan inay keenaan xuduudda Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxaysa oo sida la socotaan waxaynu muddo ku jiray wada hadal Soomaaliya iyo Somaliland oo siyaasadda ah hase yeeshee wada hadalka waxa fashiliyay dawladda Soomaaliya oo maamulka Soomaaliya kadib markii ay shirki keeneen dad aan ahayn dadkii aynu u fadhinay ama wada hadal ka dhaxeeyay Somaliland waxaana maanta muuqata arrintii siyaasadda inay u rogayaan arrin ciidan oo runtii ay wadaan inay keenaan ciidan ururiso ilaa 3,000 oo askari ah caalamkana ay weydiisanayaan inay ka caawiyaan iyagoo u tusayay inuu yahay ciidan Soomaaliyeed laakiin ujeedada meesha ku jirta ay tahay sidii loogu khalkhal gelin lahaa gobolkan geeska Afrika nabadiisa khaas ahaan Somaliland iyo horumarkeeda loogu khalkhal gelin lahaa taas runtii aanu kala hadalay in arrinta laga hortago wax laga qabto iyo khatarta ay u leedahay geeska Afrika mar dambe dagaal ka dilaaca runtii taas ugu weynayd iyo sidii wadamada aynu dariska nahay ama Carabta ahaadeen ama ahaadeen Ethiopia sidii nabadiisa loo wada ilaalin lahaa ayaan ka soo wada hadalay si wanaagsan waan soo afgaranay madaxdeena sare سعادة وزير الدين سؤالان كويديو سفر كاغان aad ku tagtay Imaaraadka iyo Ethiopia intaad maqnayd waxa jiray warar la xiriira socdaalkaaga soo baxayay oo sheegayay inuu jiray muran idin dhaxay wasaaradda maaliyadda ka soo la xiriiray in wasaaradda maaliyaddu ay ka jartay lacagtii maamuliyay amniga saas darteed cala darteed uga baxday dalka arrinka caynkaas ma jiraa wasaaradda wallahi samsamna aad baan isugu wanaagsan marka hadda ciidan ka carwado garan maayo wasaaraddan ida ka madaxa marka arintaas waa arrin dhan xiir sameeyay baan u maleynayaa wax ka jirana habeeraasay ma jiro wasiirkan aad baan wada shaqeyn aad noo sugu wanaagsan in waagaga saacad wasiir oo Faisal Fifa ka soo Royal TV intii aad ku maqneed shirkaad ka qayb gasheen Soomaaliya dad kamid ah ayaa kala qayb gasheen waxa soo baxaysay baraha internetka ama dadka ku kulmaan waxa soo baxay idinku caalamkii calan buluug xidhan bal calankaas dadku fasiraadada kala duwan ka bixiyeen bal fasir calankaas wuxuu ahaa yaan la kulanaadeen calan midab buluug ku sawiraya Facebookida boogash ku soo kumay bariga waxaan ma orday meel Soomaali aan kula shiray ma jirto ma aan arag Soomaaliyana waxay u dumisay barigan xamar ka soo qaxay iyo calankaba meel dambo aan ku arkay iyo meel dambo la dul sureena ma jirto aad baan runtii uga xanaaqaa marka talooyaa sameeyay mareer koonfureedka sameeyay mise basaasiinteena sameysay ma garanayo laakiin waxa la wax ka jira ma jiro way dad badan oo iyaga u shaqeeya jiro inaga nagu dhex jira marka waa laga yaabaa kuwaas laakiin Soomaalina ma arag meelay joogaana ma arag bari xamarka soo qaxay baa ugu dambeysay runtii calankaas oo calan aad iyo aad u nabcahay oo xuquuq badan baa inaga maqan xaqii arrimahan doorashooyinka muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo baxayay aragtiyo kala duwan oo dadku ka bixinayeen komishanka intaad maqnayd waxay cayimeen in muddo sanada ay u baahan oo ay ku tilmaameen tahay waqti farsamo guurta laftirkooda muddooyinkan dambe waxay wadeen hawlo kordhina bal arrimaha iyaga maxsad aragtay dalka maqnayd runtii arrimahaas intii aan maqlaa way jireen waan maqlayay runtii waxaan jeclahay ka wasiir arrimaha gudaha Somaliland waxaan ahay wasiirka ugu dhowe ka shaqeeya ama hawlihiisa ay u badan yihiin doorashooyinka waxaan jeclahay inaan halka munaasabadan uga faa'iideysto inaan dadka reer Somaliland u sharaxo arrinta ay tahay runtii arrinta dib u dhaca waqtiga doorashooyinku ma aha mid ay dawladda Soomaaliya mas'uul ka tahay mana aha mid komishanka qaranku mas'uul ka yahay laakiin hawlo way qaybsamaayeen waxay ahayd labada diiwaan gelidood tan ah diiwaangelinta madaniga ama kaarka Somaliland iyo tan codbixiyaashu inay mar hore sanad hore ay wada bilaabmaan bay ahayd sanad ka hor nasiib darro ciddii ku shaqo lahayd voterka ama muxuu ahaay kaarka doorashada dib bay uga dhacday waanay gaari kari weydeen in la bilaabaan kii muxuu ahaay diiwaangelinta taas waxay keentay in doorashooyinku farsamo ahaan ay dib ugu dhacaan
waana waxa imika taagan ee keentay inay doorashooyinka waqtigeedu ku qabsoomi waayaan waxa kaloo in runtii nasiib darro ah weli la xataa imika inaan wixii loo baahnaa ee ay doorashooyinkaas ama diiwaangelinta madani muxuu ahaay voterka ay ku suurtogeli lahayd ama codbixiyaasha inaanay weli ina soo gaadhin oo ay commissionku sugayaan marka Soomaalidu waxay tiraahdaa sixir wuxuu sheegay sixir ka daran in arrimaha aan maqlayo ama TV-yada ka socday khalkhalgelinta ee aan isleeyahay waxay ka imanayaan meelo fog waxa weeye waxaynan shaqo ku lahayn mas'uuliyadeedana aynan lahayn in loo tuso ama shacabkeena iyo ummadeena loo tuso inay tahay dambi inaga aynu leenahay maaha waxaana loo baahan yahay dadku inay ogaadaan sida xaqiiqada ah arrintaas waa arrin ka timid dhinacii muxuu ahaayey qolooyinkii deeqbixiyaasha ee arrintan iyagu gacanta ku hayay ee lacagta bixinayay ayay dib uga dhacday imikana iyagaynu ka codsanaynaa inay dedejiyaan wixii xaggooda ku xidhan waxaana loo baahan yahay arrintaas oo arrin maanta la isku qabsadana maaha arrin dadka dhexdiisa foolxumo keentana maaha waa arrin u baahan caqli iyo samir iyo inaynu kaga baxno iyo wadatashi iyo muxuu ahaayey caqli wanaagsan runtana aynu ogaano ee aan laynoo kala sheekayn ama aan laynoo kala sheegin waxaan dhexdeena olbay ayay u baahan tahay waxaanan qabaa ha dheeraato hase dhawaatay kulliba doorasho waa inay daaweyne way dhacaysaa marka aynu farsamooyinkeeda dhammayno ninkii walo Soomaaliland ama la dooranaya ama wax dooranayana diyaar buu noqonayaa marka anigu ma qabo wax la isku qabqabsada iyo hadallo foolxumo iyo keena xanaf in meesha ka soo baxdana loo baahna waxaanay arrintan ka turjumaysaa caalamku waxaan ku jirnaa tijaabo duruufuhu had iyo jeer iyo caqabado way yimaadaan laakiin waxa la eegaa ummadaas hadba siday caqliga ay kaga shaqeysay sida uga baxdo marka sidii Soomaaliland baa ay hore uga bixi jirtay dhibaatooyinkan qabeen looga bixi doono mana qabo inay tahay arrin buuq iyo khalkhal mid keeni karta way saacad wasiiri magacaygu waa Peter Koosaan Maxamuud mudooyinka ku dambeeyay waxa soo baxay warar sheegaya adiga iyo madaxweynaha naafiriintu mudooyinka ku dambeeyay wanaagsanay sida ma qabta mise wararka maxaad ka jawaabaya wallahi kan caalamka Soomaaliya dul saaran baa isagana ma farsameeyay ma maranaya laakiin odayga aad baan isugu wanaagsan saacad wasiir saynu ka warqabno commissionka doorashooyinku waxay qabteen inay muddo sanad ay ku dhamaysanayaan dhamaan bahawlahooda golaha guurtooda soo kale ayaguna muddo kordhin bay dhinacay ka wadaan oo maanta u dambayso guddi baa loo saaray beesha caalamku waxay doonaysaa sanadkaas inay wax walba ay ku dhamaadaan adigu waad soo aragtay baaqi kala duwan way soo saareen ma isleeday adigu sanadka way ku dhacaysaa doorashadu mise muddo kordhintan aad commissionku wado ayaa saxsan baa u leedahay runtii anagu waan ka wada hadalnay cidii aanu saragnay waana istusinay meelaha ay ilaa imika ay wax ka maqayeen waanu isla garanay had iyo jeerna waxaanu maaha wax siyaasad dib loogu dhigay wax farsamay noqotay farsamadaasuna waxay ku xidhan tahay hadba sida uu soo buuxsanto ayay ku xidhan tahay waana arrin la sugayo international community-guna way og yihiin inta badanna cidda laga sugayaa waa iyaga marka anigu waxaan qabaa cid waliba dawladuna way jeceshay cid waliba way jeceshay in waqtigeeda ku qabsanto laakiin warkii farsamay naga reebtaa waa halkeeda saacad wasiir magaca way qorshe Victoria in waxaan jeclahay su'aal dafra badan xilli laga joogo ballan qaaday adigu wasiirka arrimaha gudaha in xakahan leh shirkadaha isgaarsiinta iyo shirkadaha leeb cidii dhulka maranayda ay ganax ka qaadaysaa dafra badan laga joogo waa xilligii loo runtii waa qolooyin badan oo sameeyay way jiraan dhulka geliyay kuwa imika ku tiri jiraan way jiraan laakiin waqti ganax uu jooga aad baad i xasuusay ha u diyaar garoobaan cidii aan gelin ganax ay bixin doontaa hadii waxaan ugu yar $50,000